sagaalkii bisha 12aad ayaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxa uu soo magacaabay maamulka cusub ee degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxa uu gudoomiye u magacaabay Maxamed Cabdullaahi Muuse halka ku xigeenkiisana uu magacaabay Axmed Salaad Cabdullaahi Warsame 20kii bisha 12aad ee isla sanadkii tagay 2020 ayaa si rasmi ah waxa xilka ugu wareejiyay maamulka cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne Qoorqoor maamulkii talada hayay uu hogaaminayay Yuusuf Cali Khayre gudoomiyihii hore ee degmada Baxdo Yuusuf Cali Khayre ayaa xilka ku wareejiyay maamulka cusub waxa uu bulshada degmada Baxdo kula dardaarmay inay la shaqeeyaan maamulka cusub halka maamulka cusub ee xilka la wareegayna uu ku amaanay maamulkii isaga ka horeeyay shaqadii wanaagsaneed ee uu degmada ka soo qabtay gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha Galmudug uu soo magacaabay mudane Maxamed Cabdullaahi Muuse in aan ku wareejiyo degmada Baxdo gudoomiyaheeda ayaan u soo fariistay laga bilaabo saacadana waa ku wareejiyay asaga gudoomiyaha wala shaqeyn doonaa gudoomiyaha hore degmada Baxdo Yuusuf Cali Khayre oo xilkii uu muddo soo hayay oo anagoo shacab aan kula shaqeynaynay in gartay maanta inuu ugu wareejiyo xilkaas aadaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxaad soo martay waqti runtii aan dareensannahay oo aad iyo aad u dhib badan oo culays badnaa dalku inay dalka aysan ilbax ahayn oo shaqada aysan aad maaragtay aysan ilbax ugu ahayn maamulkan oo dooran muddo 53 maalmood ayaa inta uu xilka hayay waxa uu qabtay wax qabad la taaban karo oo ay ka mid yihiin dibadayactirka wadooyinka laga soo kala degmada oo kurgalida xaaladaha dhabta ay ka jira deegaanada hoos yimaada Baxdo iyo sidoo kale xalinta beelo in muddo colaado ka dhaxaloosneed deegaanada ay karmeerka ku tageen waxa ka mid ahaa Maarsamage Galbarwaaqo Ceelduur iyo sidoo kale Balli Guuleed waxayna dhageysteen cabashada dhammaan deegaanada ay booqdeen halkan waa wadada isku xirta Cadaado iyo Baxdo waxa buuxdhaafiyay bacaad aad u fara badan kaasi oo ay dhibaato weyn ku qabeen dadka iskaga kala goosha magaalooyinka Cadaado iyo Baxdo maamulka degmada oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkan ka bilaabay olole dib loogu dayactirayo wadadan isku xiriirisa Cadaado iyo Baxdo oo muhiim u ah bulshada alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaas jiddan basaaka waxaan ku shaqaynaa wadooyinka soo gala degmada Baxdo wada ka mid ah wadadaas oo bacaad u fariistay sababta keentay bacaad ku fariisto dhulkan dhul bacaad ma ahayn waxa way sanadadii ugu dambeeyay ayaa roobku ku yaraa wadankan degmada gudaheeda ku yaraa abaarta markay timid bacaadkii waxa way uu keenay inuu kaco dhulkuna dhir ma lahan oo dhulkiisii waa aad u dhamaatay waxa way haddana ciidii waa u jeedaan markii la riixay meel wadadii gaarkeeda la dhigayaa sababta keentay inuu waxay tahay ma jirto iska dagooyin waaweyn ee bacaad inta lagu qaado lagu fogeeyo markaan sidaas wax ku noqotay inaan soo wadada agteedii aan dhigno si uu maalba lagu moodo sidoo kale maamulka degmada ayaa u kurgalay xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanada hoos yimaada Baxdo kuwaas oo baahi weyn u qaba u adeegida maamulka cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor Maxamed Cabdullaahi Muuse gudoomiyaha degmada Baxdo iyo ku xigeenkiisa Axmed Salaad Cabdullaahi Warsame ayaa waxa ay waan ka dhax bilaabeen beelo wada deegaano hoos yimaada Baxdo kuwaas oo in muddo ay ka dhaxaysay colaado ka dhashay isaysiga dhanka dhulka ah maamulka degmada oo kaashanaya odayaasha dhaqanka culimaadudiinka ciidamada booliska kuwa xooga dalka Soomaaliya qaybta 12aad ee ka howlgala deegaanada maamulka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa xal ka gaaray colaada ragaadisay deegaanadan hoos yimaada Baxdo oo si dardaarmo oo shaqooyinka deegaanka oo soo laalaabanayo laga hortago waxa way goob la qoday oo xawaal bilaasha oo 120 bata xalma kulku umada ku daaqa iyo wadadega iyo nabadda laakiin colaada iyo cudurka iyo caafimaadka kuma deeqo arrinkaas insha Allah taala aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa si fiican aad maaragtay yeesheen waa laga hortagay wixii socday inaysan wax dambe soo laaban sidoo kale maamulkan maalmaha dooran ayaa waxa uu kulamo gooni ah la yeeshay madaxda ugu sareysa ee maamulka Galmudug oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dr maxamed gacal gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug wasaaradaha caafimaadka arrimaha gudaha waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda bay'ada